kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable waxaan idin warramaya anigoo Maxamed Maxamuud Doore qodobada ugu waaweyn baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday ajenda uu kamid yahay talaabadii iyo go'aanka ay qaadatay xukuumadda Soomaaliya kaasoo ahaa in Cabdikariin Qalbe Dhagax lagu wareejiyo dawladda Itoobiya Allah naxariistay wariye Cabdullaahi Cusmaan oo ku dhaawacmay qaraxii dhawaanta ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa saaka aroortii ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho shacabka ku dhaqan magaalada Cadaada ayaa ku eedeeyay maamul goboleedka Galmudug inuu markaasi yahay mid aan waxba qaban isla markaana arrimaha ammaanka deegaanadaasi ay faraha ka sii baxayaan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa imikana ku soo dhawaada isagii oo dhan balse marka hore qadar xayeysiina baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday ajenda ay kamid yihiin talaabadii iyo go'aanka ay qaadatay xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo ku saleysnaa in Cabdikariin Qalbe Dhagax loo wareejiyay Itoobiya isla markaana arrintaasi ay ahayd inuu lid ku ahaa ammaanka Soomaaliya isla markaana uu taageerayay argagixisada sida lagu sheegay war-saxaafadeedkii dhawaanta ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya kulankii baarlamaanka waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha Somali Cable Cabdicasiis Riyali warkan ayuuna ka diyaariyay kulanka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mid xasaasiya isla markaana ay joogeen xildhibaanada fara badan oo intooda badan la dhigi karo xildhibaanadu way soo xaadireen waxa looga hadlayay ajandaha ku aadanaa go'aanka xukuumaddu ay ka qaadatay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbe Dhagax xildhibaanada taageersan go'aankaasi xukuumadda iyo in Cabdirashiid Sheekh Muuse Qalbe Dhagax go'aan ay ka gaarto xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay waxaana ka mid ah xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo waliba sidoo kale xildhibaan Mustafa Dhuxulow heshiiskii ay xukuumadda gashay wuxuu ahaa xukuumadda sideedaba heshiis waa geli kartaa xukuumadda markaan halkaan ka ansixinay waxaan u wakiilanay in ay shaqadeeda si hufan u gudo waxaan aaminsanahay inay shaqadooda si hufan u gudteen sababtoo ah qodobka 126 farqadiisa koowaad xukuumadda waxay damaanad qaadaysaa amniga iyo gobonnimada dalka haddii maanta xukuumaddii aan siinay kalsoonida gacmaha iyo lugaha intaan ka xirno aan la daba taaganahay buuq fara badan aad iyo aad ay nasiib darro u tahay marka waxaan kadiga laga fiirsado in siyaasadda looga faa'iidaysto in ama shakhsiyaad kala gareeyo ama la isku dayo qaar kastoo dhaca in shacabka lagu warqaabiyo u baahayo hal waa dhici karaa in la saxaado maayo ma ka shaqeeyo dadka barnaamijda ay u leedahay qalad saxaad kama shaqeeyo waxay ka shaqeeyeen shacabka magaalada jooga ka cashaan shacabka Soomaaliya ka cashaan shacabka reer ka dheer dowladda oo dhan soo duulay waqtiin xal weeysi hadii shacabka reer hayne shacabka nagama sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo xildhibaan Mahad Salaad oo ka soo horjeeday go'aanka xukuumadda ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan baarlamaanka maanta waxaa lagu sheegay wadaha Cabdikariin muwaadinka Soomaaliyeed markii la diiday sababaha ku qornaa inuu abaabulayo qodobadii ku amniga in muddaha uu ka dhexwaday gudaha geeska Soomaaliyeed sidoo kale waxaa lagu sheegay inuu xiriirka lahaa urur argagixisa oo Al-Shabaab la yidhaahdo meeshaan gudoomiye waxaa ka cad muwaadinka Soomaaliyeed dambiga la yiri waa lagu dhiibay inuu yahay dambi ay leeyihiin wuxuu ka garan dalka Soomaaliyeed ee caddayn ku qoran inuu ka garan dalka loo dhiibay go'aankaasi wuxuu meel ka dhac ku yahay qaranimada iyo jiritaanka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan soo jeedinayaa qaraarkaas ama go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay xildhibaanada hadlaya waxaa codsanaa markaa hadlaysii waa dhegaysanaya markii ay dhegayso waa codsi waa بكل احترام inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ku talinayeen in loo daayo xukuumadda Soomaaliya arrimaha amniga inkastoo ay jireen xildhibaano kale oo ka soo horjeeday ugu dambeyntiina waxa go'aan lagu gaaray in guddi arrintaasi loo saaro si uu u soo baaro gudoomiyaha golaha shacabka asagoo la tashaday ku-xigeenadiisu waxa uu magacaabaa guddiyo u saaran in ay qabtaan howlo gaar ah warbixintooda u soo gudbiyaan gudoomiyaha golaha shacabka si loo horteeyo golaha shacabka saa daraadeed waa guddigaan dhisi doonaa ilaa bilis waa ka shaqeynayna sabtiga idin keenayaa guddiga xilkooda magacyadooda
soo sheegi doonaa haddii aad yidhaahdo saa daraaddeed waa ku mahadsantiisa kulanaadeeda cabdicays cabdulaahi maxamed cabdicasiili Somali Cable magaalada Muqdisho. naanbax kooban oo lagu taageerayo go'aankii xukuumadda Soomaaliya ka qaadatay arrinta Cabdikariin Qalbi Dhagax ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. warkaasi waxay noo haya wariyahayaga Cabdicasiis Riyaali. banaanbaxan oo ahaa mid kooban oo lagu taageerayay xukuumadda Soomaaliya ayaa bilowgiisii waxa uu ka bilowday agagaarka taalada daljirka degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho waxaana halkaas soo gaaray mas'uuliyiin ka socotay degmada Boondheere oo sheegay inaysan fasax u qabin in halka banaanbax lagu dhigo dibadbaxayaasha ayaa durbaba u wareegay qaybo kamid ah degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho halkaas oo inta badan banaanbaxa ka sameeyay qaar kamid ah dadkii banaanbaxa ka soo qayb galay ayaan goobtaasi ka hadlay ka taala Muqdisho hadeer meel waa mid aan ka hadli karo ma waa mid aan la khiroonayo alxamdulillah shukrillah ahadi baan soo dagay farxad baan ku soo dagay wadankayga ilaa ku noolaadaan u imaaday haddana waxaan arkayaa buuq iyo rabsho laga daawado dawladda hala sii xurnimo war dawladda xurnimo hala siiyo war masaakiinta ha loo gargaaro war wadankeena aan ku soo laabano caruurteena ka soo caruurta keesano caruurta aan soo qaadano war wadankeena aan ku soo laabano war la siiyo xurnimo aan ku soo laabano aan ku dhimaano magaalada hodan aan ku dhalanay hodan waa ka baqayna hadda ma dhex taagnaan karno waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta iskugu soo banaanbaxno magaalada Muqdisho annagoo dareenkeena iyo Soomaalinimadana muujinayno waxaan doonaynaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dawladda oo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo dhammaan xukuumadda inay yihiin kuwa ugu wanaagsanaa ayna soo maraan banaanbaxayaasha qaarkood ayaa isku dayay inay soo aadaan dhanka xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho waxaana lagu kala eriyay rasaas ay ridayeen ciidamada ilaalada ah ee sugayay ammaanka xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho qaar kamid ah dadka banaanbaxa ka qayb galayay ayaana ka hadlay dareenkooda ku aadan in xilli ay banaanbaxayaan rasaas lagu rido halkan inaan ka sheego ra'yiga dadweynaha dad ku soo banaanbaxay oo taageeraya dawladooda iyo rabitaankooda in la tixgeliyo ayaa xabad lagu kaleeyay haddaan ka hadla midda baarlamaankuna xaq uma laha waxa ay dadka doonayaan inuu ka shaqeeyo maahan inuu ka soo horjeesto ma dawladda ay rabaan dadku inay u daayaan baarlamaanka isaga xaq darro ku fadhiya baarlamaanka isaga laba jaga isku haysta marna wasiir marna xildhibaana taasna xaq uma laha aqoonyahankiina banaankii taagan yihiin dadka in la tixgeliyo waxay rabaanna loo daayo dawladda haddii taageersan yihiinna loo daayo askartuna inay hubsadaan maaha inay xabada ku kaleeriyaan dadweynaha dadku waa la xabadeeyey xabadaa lagu kaleeriyey soo banaanbaxay oo rabitaankooda ka hadlaya xuquuqda iyo xorriyadda qowlka in la dhowro ayaa loo baahan yahay dawladda taageeradeed farmaajaan ku taageerayn degmada Howlwadaagan ka soo baxna jidkan dheer aan soo marnay intaan mareyn madaxtooyo inaan tagnaa waxaana ku xabareeyay buulka seedka shucuurta dadweynaha waa laga hor yimid mugdi aan ka baxna ayay nagu celinayaan mugdi waa laga baxay nolol iftiin aha la galo maalin aha la galay annagu waxaan nahay dad shacab aan nahay meeshaan raacnaan raacsana ugu dambeyntiina banaanbaxayaasha ayaa ku feeray amba ku qayoostay agagaarka xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho Cabdicays Cabdulaahi Maxamed Cabdicasiili Somali Cable magaalada Muqdisho guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa soo gabagabeeyay qaadashada kaararka codbixinta doorashooyinka Somaliland oo maalmihii u dambeeyay ka soconayay guud ahaan deegaanada Somaliland warkaasi waxay noo haya wariyahayaga magaalada Hargeysa Idris Bershia munaasabadani sida ballaaran la iskugu soo dubariday oo ka qabsoontay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid komishanka doorashooyinka Somaliland ay ku soo gunaanadayaan qaadashada kaararka codbixinta doorashada ee ka socotay bilihii u dambeeyay guud ahaanba gobolada iyo deegaanada hoos yimaada Somaliland waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday asxaabta siyaasadda xildhibaano ka socday golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo mas'uuliyiin ka socday beesha caalamka ugu horeyn waxa madasha daafuray kana hadlay halkaasi mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka Somaliland iyagoona ka warbixiyay sida ay ugu qabsoontay qaadashada waraaqaha kaarka codbixinta iyo qaadashada kaarka codbixinta oo labaduba kala dambeeyeen gelintii iyo kaar qaybintii inoo soo bilowday 2016 waxa ka horeeyay 2015
oo tijaabo ay commissionku sameeyeen tijaabadaas oo la xidhiidhay midda ah sida uu u shaqayn doono habkan aynu hadda diiwaangelinta ku gallay guud ahaanba halkan maanta u fadhinaa marka maxay commissionku soo wadaan commissionku waxay soo wadaan oo iminka la sugaya horta waa liiskii sidaan idiin sheegay inaanu soo gudbino tirada ugu dambaysa ee codayn doonta wixii intaa ka dambeeya waxay doorashadii la sugo haddii lahay ka dhigo waxyaalo badan baa hareereenayna ka dhacay xogteena iyo doorashada lagu galaya sidee bay noqon kartaa mid loogu kalsoonaan karo dhowrsanaanteeda in wax la iska weydiiyaa waa mid meesha runtii ku jirta horta si aynu u hubino inay xogteena dhowrsan tahay mararka qaar waxaan maqnaa online marka online-kii aanu idinkaga qaldamin xogta kaydinta serverku ma aha meel ku xidhan online internetna kuma xidhna cid alla cid kale oo haddii xogtaa ku saabsan oo gelaysa ma jirto maantana ay soo gunaanadeen geestooda iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka kala socday asxaabta siyaasadda dalka iyaguna bogaadiyey guddida doorashooyinka somalilan labadii faysii hore alxamdulilah oo uu yahay maanta fayska inoo hadhay kii ugu muhiimsanaa kii maslaxadda reer somalilan dalka iyo dadkaba inaynu aada iyo aada uga wada shaqeyno ayaan aada iyo aada u jecelahay markaa sidaa leedahay labada xisbi ee walaalahaya waxaan leedahay aynu sharciga ilaashano xusbi ahaan waxaan diyaar u nahay marka ugu horeysa doorashada iyadoo aan raacayno xeerarka iyo sharciga qaranku u dejiyey maamulka doorashooyinka annagoo kaa raacayna inaanu si buuxda ula shaqayno komishanka doorashooyinka iyo qayb gallo munaasabadan qaaliga ah ee ah inaynu u dabaaldegno inaynu ku guulaysanay diiwaangelintii iyo qaybintii kaararka codbixiyayaasha waa guul qaran oo qarankan soo hoyatay waxaan ku hambalyaynaynaa ciddii suurtogelisay hawshaasi inay noo qabsoonto gebagabadii munaasabadda waxaa soo gunaanaday cabdiqaadir imaan warsame guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka somalilan isagoona xisbiyada uga mahad celiyey sidii mugga lahayd ee ay ugala qayb qaateen qaadashadii kaadharka codbixinta doorashada annagu haddana komishankii waxay ahayd waynu is ognahay inaynu digniino bixinay inaynu bixinay ganaaxyo waad ku mahadsantihiin ganaaxyadii aada bixiseen waxaan maanta ay noqonaysaa ganaaxyadii hore aan idiin ganaaxnay inay ka koreynayso oo wax ka badan oo culays ah waanayna maqlayaan ciidankii qaranku way fadhiyaan loo dul qaadan maayo xisbi jabiya waxaynu kala seexano haddii kale imakaba saddexdii xisbi waad joogtaane waxaad tidhaahdaan ma seexayno annagu xeerka anshixa waxay duruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa saddex ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka maamul goboleedka Hirshabelle ayaa maanta baarlamaanka Hirshabelle ka hor aqriyay khudbadahooda iyo waxyaabaha ay doonayaan inay qabtaan haddii xilka ay ku guuleystaan maxamed ciise ayaa warkaasi inoo haya saddex ka mid ah 8 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka Hirshabelle ayaa maanta khudbadaha ka horjeediyay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle iyo dadweyne badan oo ka soo qayb galay munaasabad maanta lagu qabtay magaalada Jowhar dhammaan musharaxiintu waxay ka sinaayeen ballanqaadyada ku aadan wax ka qabashada ammaanka arrimaha bulshada iyo sidoo kale dhiirigelinta dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Jowhar iyo deegaanada kale ee maamulka Hirshabelle musharax madaxweyne Cabdikariin Cali Nuur musharax madaxweyne Cabdi Faarax Laqanyo iyo musharax madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaana maanta khudbadahooda jeediyay waa kuwan iyaga oo dhameystiraya ballanqaadyada waxa ay qaban doonaan haddii midkood uu ku guuleysto xilka madaxtinimada ee Hirshabelle dhalinyaradu waa furaha horumarka nabadan ay ku istaagi karto balse nasiib darro waxaa la soo darastay dhalinyaradeenna dhibaatooyin aad u waaweyn oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan dhibaatooyin aad u waaweyn ay ka mid yihiin shaqo la'aan rajabeel aad dhinac walba waxba dhinaca waxbarashada xaaladaas kuuska ah soo wajaha dhalinyaradeenna waa inaan wacyigelino
waxaan samacsanahay horta wax walba markii been la aadayaan baa la qaataa annaga yaambada aan qaadanayno oo waddankeenna aan waxuga soo saaranayno oo aan ku noolaanayno oo ku kala nabadgelayno waa dowladnimada iyo sharciga sidaas daraaddeed haddaanaan dowlad dhisan oo dowladnimada ku dhowaan horta qabaa'il la isku darayoo sidii cambuuladii la isku faxeanahay taqaana maamul dowlad sidaa daraaddeed waxaan ka bilaabaynaa inaan dowladnimo dhaba inaan samayno dowladnimada maamulkan waxaa saldhig u ah baarlamaanka shaqada ugu horeysa oo noo taal waa inaan baarlamaanka dhammaystirno madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa isna goobta waxa uu ka jeediyey khudbad kooban oo ka hadlaysay ahmiyadda ay leedahay doorashada ka dhacaysa magaalada jowhar isaga oo kula dardaarmay musharaxiinta inay qayb ka qaataan xaqiijinta ammaanka magaalada waqtiga kooban iyo shaqada badan ay qabteen waxaan leeyahay guddigu waa dadaalayna madaxweyne ka gaarto guddoonka baarlamaanka asugu hawsha la fududeeyana waxaan leenahay madaxweyne ka gaarto iyo guud ahaan baarlamaanka waxaan rabaa inaan dhaho mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhowaada musharaxiinta u tartamaayo xilka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle soo dhowaadaan leenahay baarlamaanku waa baarlamaankiinu bulshadu waa bulshadiinu insha allah haddii inay raalli ka noqdo waxaan rajaynayaa qof waliba iyadoo qanacsan qofkii xashana iyadoo qanacsan qofkii qadaradii wax ku weydiisana iyadoo qanacsaneena xaqeeqdii waxaanan u yeelan calaf mooyiyo meeshan cadaaladdarra kama dhicin qofna lama riixin ee qofkii calafkeeda laqataa uu u heshay iyadoo oo qanacsan inay tigi doontaan aaminsana haddii inay raalli ka noqdo ummadda hirshabeellena waxaan leenahay ilaahay ha ku aadiyo mas-uuliyiinta waa wada jecelnahay dhammaantood laakiin kursigu waa hale mas-uulka ugu habboon oo ummaddan maaragtay actirta muddada dheer ku soo jirtay isu keeni karo hogaami karo cadaaladana ku hogaami karo ilaahay ha u dooraan leenahay ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan barre maxamed ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaali doonaan in si cadaalad ah oo aan musuq maasuq lahayn ay ku dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka hirshabeelle maalinta birita ayaa la filayaa in 5 musharax oo kale oo ka mid ah 8 musharax ay jeediyaan khudbadaha ay u jeedinayaan xildhibaanada iyo marti sharafta ka qayb galaysa maalinta sabtida ee soo socota ayaa qorshaha waxa uu yahay inay dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka hirshabeelle maxamed ciise maxamuud Soomaali Cable TV jowhar musharaxa madaxweynaha ee maamulka hirshabeelle daahir cabdulle cawaale ayaa maanta waxaa booqasho ku tagay cisbitaalka hooyada dhallaanka ku yaala magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe warkaasi waxay noo haya waryahayaga magaaladaasi noo joogta iqraaladan musharax madaxweyne daahir cabdulle cawaale ayaa waxa uu booqashooyin kala duwan ku tagay beeraha magaalada jowhar iyo cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada asigoona deeq daawaha gaarsiiyey bukaanada ku jiro cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada jowhar ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasho cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada jowhar iyo mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeedo deegaanada hirshabeelle waa yartahay laakiin ma yar ma sha Allah haddii intaan la isku daro everybody intaan amal keeno we can stand our legacy insha Allah mustaqbalka waxaan u adeegnaa bulshada waxaan si dhow ilaahay ka jeclaan inaan loo shaqeeyo maamul walba oo yimaado waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysto ilaahay ka dhig insha Allah marka hooyada dhallaanka musharaxa madaxweyne daahir cabdulle cawaale iyo waqtigiisa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa deeqda dawada ah ay ugu talagaleen ama ugu deeqeen bukaanka jiifa isbitaalkaas oo ah isbitaalka lagu daweeyo hooyada iyo dhallaanka waxaan leenahay ajir iyo xasanaad Allah kaa siiyo danaada guud iyo midaada gaar ahaaneed kor Allah ka dhigo aamin intaas ka bacdi musharaxu wuxuu u soo booqday isbitaalka waa hordhac waa bilowga arrimaha bulshada waa bilowga isbarashada
waa bilowga ummadda haddii uu ku guulaysto musharaxnimadiisa waxaan u malaynayaa in la heli doono dhaqdhaqaaq horumareed haddii ilaahay yidhaah musharax daahir cabdulla cawaale ayaa sheegay in deeqdani daawada ah uu ugu talagalay bukaanada ku jiro cisbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee magaalada jowhar si loogu dabiibo bukaanada xanuunsan ee jiifa cisbitaalka waa caafimaad haddaysan caafimaad jirin nolol ma jirto caafimaadka waxaa aasaas u ah hosbitaal in la helo hosbitaalkan ku yaal magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle runtii waa isbitaal yar bukaan badanna haya run ahaantii waxaan qaban doonaa haddii aan ku guulaysano xilka musharaxnimada haddii alla idmo hosbitaallo waaweyn oo ku filan waxaan u malaynayaa shabeellada dhexe gobolka ah dadku waxay leeyihiin 2 milyan 3 milyan oo ku dhow yihiin isbitaalka ugu weynna waa kan hooyada dhallaanka hooyadu waa aasaaska nolosha qofka bini'aadanka ah hooyo la'aanteed nolol ma jirto runtii daawooyinkan ma aha daawooyin dhowr maalmood ku filan xitaa waa hordhac waxay ka kooban yihiin qalab shaybaar waxay ka kooban yihiin daawooyin kala gedisan waxay ka kooban yihiin shubanka daawo lagula tacaalo run ahaantii waxaan abuuri doonaa jawi la socosho oo aad u ballaaran oo ah xagga caafimaadka ah run ahaantii isbitaalkan hooyada dhallaanka musharax madaxweyne daahir cabdulla cawaale waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waxauna sidoo kale maanta uu booqasho ku tagay beeraha magaalada jowhar waxa uuna sheegay haddii uu ku guulaysto xilka madaxweynaha hirshabelle inuu wax badan u qaban doono beeraleyda ku dhaqan magaalada jowhar isla markaana uu furi doono warshado looga faa'iideysto dalagyada ka soo go'o beeraha magaalada jowhar runtii waa farxad beere intaan la eg inaan dhex imaado oo ku yaal jowhar caasimadda maamul goboleedka hirshabelle waxaa farxad kale ii ah inaan dhegaysto warbixino badan oo ku saabsan beeraha waa halbowlaha nolosha runta haddii laga hadlayo qof isnaay warshadahaas dib u dhis weyn ay rabaan waa baaba'eento taliba waa bilow waa in dib loo bilaabaa waxaan isku dayaynaa haddaan awoodi wayno inaan ayaga aan dib u abuurno warshado kale oo sokor inaan abuurno oo yaryar si qof walba hiba intuu qaban karo uu qabto waxaan isku dayaynaa in maadaama ay halbowlaha beeraha tahay ay yihiin labada gobol waxaan isku dayaynaa warshado yaryar iyo oo laga dhex abuuro beeraha dhexdooda si wax soo saarka loogu warshadeeyo kabacdina loo dhoofiyo taas ayaan isku dayaynaa haddii aan dhahno hadda warshadii isnaay biyaasa sideedii horaan ka dhigaynaa been baan sheegnay xilliga kan laakiin waxaan abuuraynaa warshado yaryar kabacdina waxaan ku tegi doonaa warshada isnaay biyaasa warshad ka weyn inaan dhisno iqraa cabdulaahi raage iqraladan tifiga caalamiga Soomaali Cable caasimada dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar salaadiinta iyo cuqaasha deegaanka wajaale ee Soomaaliland ayaa fariin cabasho u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye warkaasi waxay noo hayaan wariyahayaga Jaamac Dude qaar ka mid ah odayada iyo waxgaradka deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta shir jirayd ku qabtay deegaanka Wajaale ee gobolka Gabiley ayaa baaq fariin ah waxay u direen madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo waliba musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan leh u soo farageliyaan dhul maalmihii ugu dambeeyay muran ka taagna isla markaana ku yaala deegaanka Wajaale odayada iyo waxgaradkan oo ka hadlaya arrimahaas ayaa hadaladoodii waxa kamid ah halkaan joognaa waa Wajaale waxaan dhex joognaa beerisi waxa weeye waxaan madaxweynaha u sheegnaa oo madaxweyne ku-xigeenka u sheegnaa oo wasiirka madaxtooyada u sheegnaa oo madaxweynaha mustaqbalka gudoomiyaha xisbiga kulmiye أنا مشرحة مدحوينها أنا شيءنا إن هاو شارلكا سيدا أوديك هربا وعاقلك هربا وصوت شيء طبعا سواحد كبيرة بين تعودة دقم ما أنت لو حيجوكتا محكمة دي وقصة رئيسية تاجنت
dee 10 sannadood bay soo rafanayeen haa 12 sannadood ay soo rafanayeen xeer ilaaliyaha guud baa ku fadhiistay madaxweyne waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aad eegto sharciga maxkamadda sare ay soo qortay sidii marka horeba jaraa'idka kugu yimid ee loo soo caddeeyey xeer ilaaliyuhuna uu si cad isku hortaagay inuu soo qabto dembiilayaasha xayiraad jebinta sameeyey adiga ayaannu kaa codsanaynaa inaad dib u eegto sharciga maxkamadda jaga lahaayeen hadday ballay lahaayeen hadday boota lahaayeen hadday beer lahaayeen in laga soo dareeriyey waan la socdo dee waad ogtihiin idiguna waad ogtihiin annaguna waan ognaa kow maxaan sugaynay ilaaha wax abuuray ee nabadda iyo colkaba kolkuu doonana ku kiciya ummadda kolkuu doonana ka qaboojiya nabad baannu ka sugaynay ilaahaynaan ka sugaynay Soomaalilandna bilaa cid cadaaladda gacanta ku qabata u dhalatay yaanu sugaynay 26 sannadood way ka sii dartay cadaaladii way ka baxday meeshaasi cadaalad darro iyo qolonnimo ayaa nahadhaysay oo Soomaaliland dhexdeeda Soomaalilandna Allah u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal baa isagaa dhisay isagaana ila dhimatay anigu magacayga waa Cumar Iimaan Cali waxaan ahay nin fanaana intii garanaysaa way garanaysaa sidaasaan markaa dabaan uu go'aan ku qaadanay inaan baaqi ugu dambeeyay nabadgelyo inaan madaxweyne kugu soo gudbino iyo inta kale ay khusaysay mas'uuliyiinba inaad hawshaas sida ugu dhaqsaha badan leh noo soo faragelisaan waayo taayadii madanigu way taaganto maxkamadda sare ay taagantahay dulbi kastoo nagu soo dhacay darajadii saddexaad waanu sugaynaa waxaan san la yaabanahay in oo meesha dhib ka dhaco noogu muuqata dee sharcigii dawladdu lahayd xayraadii sharcigu lahayd dawladdu lahayd la jabiyay ayaa kii ilaalinayay waxaan ku baal maruusan u jabinaya dee madanigii baxaad u malayn taasina waxa ku dulmi kala ka sii weyn u badhacay xaqayaga anu marnaba wada kastoo loo marana waa naga ballan inaanaan ka tagayn ka waxaan ilaahay intii hadhow la noodan lahaa waxbaad magaranaysaa inay qaladeen cadaymahan oo dhanna waan idin soo wada gudbinaynaa iyo waxa amar iyo warqado la soo saareen inta dul qaadan iyo dhibkaada soo dhacay oo dhan odayaasha idin keenaya waxaan markaa daba ilaahay idinku aad iyo aad u mahadsan waa in si dhaqso ah noo soo faragelisaan meeshan sharci darro iyo cadaalad darro xoog leh ayaa jirta nin walba kursiga ku fadhiyo dantiisu mu ka raacay jaamac xuseen jaamac dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland haweenka ku dhaqan magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxay ka hadleen arrimo la xiriira siyaasadaha Soomaaliland ee deegaanadaasi ku wajahan iyo arrimaha doorashooyinka warkaasi waxa inoo haya wariyahayaga Siciid Isxaal haweenka ku dhaqan magaalada Baran ayaa kulan ku yeeshay xarunta wasaaradda haweenka ee magaalada Baran kulankan ayaa taabanaya baaq ay u darayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo beesha caalamka baaqan ayaa ahaa faragelinta qaawan ee ku haysa Soomaaliland gobolka Sanaag haweenka kulankan yeeshay ayaa hoosta ka xariiqay inay kala laabato siyaasadda guracan iyo amni xumada ay ka wado Soomaaliland gudaha gobolka Sanaag waxayna intaas raaciyeen inay ka mid yihiin Soomaaliyeed waxna la qaybsanayaan waxaana ka mid ah daladoodii meesha isugu yimid inaanu kaga hadalno shucuurtayada dumarnimo shacabka iyo fikirka aanu ka qabno wixii dhibaato ku haya wadanka oo xadgudub ku sameynaya taasoo ah maamulka aan dariskanahay ee la yiraahdo Soomaaliland dhibaatada ay nagu hayso Soomaaliland waxaan leeyahay si degdeg ah hanooga qaado hana nooga laabato faragelin aad u foolxun oo dhibaatooyin fara badan ay naga soo gaareen ayay nagu haysaa dhibaatooyinka oo wajiyo badan leh wajiyada oo colaad iyo siyaasad intaba ku shaqeynaya Somaliland hadda waxay ka dhawaajisay in cili ka timi waqti dhul ay dhalinyaro joogaan xoogaa ah oo ay joogaan Somaliland shaharo yar ka qaato oo isaga shaqo tagay oo dhalinyaro ay joogaan inay sanado keensadeen
nin dhalinyara u shaqo tegayna somaliland kama dhigi karo waddankeeda waddankaygu waa xor gobol sanaag waa xor waxaanu leenahay sidii gabdhihii horeba ku hadlayeen somaliland dagaalka siyaasadeed iyo kan qarsoona sulxaynta aan isla fahmayno iyana waa fahmayana waa fahmaya hanaga daayeen warwabaamankaage marsaangelimiyaydin arag indhergarabkiyo aqoon-yahan maxaa la tegay wabaamankaage warsaangeli maxaydin helay indhergaradkiyo aqoon-yahan maxaa la tegay abnigi walume aqoon-yahan maxaa la tegay wadogaydeena muhuriya fudud ka dhacay ogaydeena muhuriya fudud ka dhacay ma ankirteeno ma afka daboolateen ma ankirteeno ma afka daboolateen ma anfiteeno ma indhahad ka udateen wabaamakage warsangeli maxay Somaliland ingiriis barigii hore markii wadanka uu yimi ingiriis iyo talyaani baa wadanka qaybsaday ingiriis wuxuu qaatay Somaliland baa ay talyaani bariguu qaatay kabacdi waxaan idin sheegayaa wixii ingiriisku idinku guray alaana aad gooni istaaga ku tihiin maskaxdiina ay geli waxaan la hadlayaa ninka madaxweynaha hadda ay ka dhiganayaan oo taageersan yihiin mujaahidka yaraahdaa mujaahid yaa u tahay ma muslim baa la dagaalantay mise gaalo markii u horeysay mujaahidow annagu kuma taageersanin qofkaad mujaahid ku noqotayna waa annaga waad garanaysaa suuqa aad gashay Soomaaliya mujaahid ku noqotay sidaad doorasho u heshaa halila wadankayga noo daaya halila Somaliland waxay hadafkeedu yahay hooyaan ilma aan dhalin horaadada nuujiso hanado hoy tiraahda waxaan ni sheegaynaa inaanu nahay Puntland anagu Somaliland shaqo kuma lihin shuqul kuma lihin dhulka yaga ku had ee rabtana ma helayso mana doonayso Somaliland dooni mayno subay wada Somaliland dooni mayno subay wada sanaag way laga sifeeya inta ku sugan sanaag way laga sifeeya inta ku sugan lagana saara ayo Sooniya shalagaya lagana saara ayo Sooniya shalagaya sanduuqyadayno wadana sifir lagu dira Somaliland waxaan leeyahay Somaliland waa kelmad uu bixiyay isticmaalka Ingiriisku waa Soomaali waxa degan dalka dad badan qabaa'il badan baa degan Somaliland isaaq waa sheegtay qabiil baa degan isaaq la yiraahdo anagu waxaan leeyahay sigari maanta degan wada bulshada baa degan nin walba rabitaankeeda hadduu ka hadlo anagu maamul baan ka tirsanahay reer Puntland run boobna ma dhacayno حقيقتي لا تجيو كل حردو تبو حقيقتي مويس كاي أنا بعرض بعيد أشياء أنا بعرض كي با على كل صاحبة أنا بعرضها في الشوارع عدم ويا بلو شدك تعام بعيد على أركان لبتدي الله على سعيد إسحاق الفندق صومالي كوبل مقالة بران bulshada ku dhaqan magaalada Cadaad ee gobolka Galgaduud ayaa ku eedeeyay maamulka Galmudug wax qabad la'aan sidoo kale waxa bulshadaasi ay sheegeen in ammaanka deegaanadaas oo faraha ka sii baxayo warkaasi waxay noo hayay wariyaha halkaasi noo jooga Axmed Cabsalaan Khaliif bulshada ku dhaqan magaalada Cadaad ayaa waxay ka hadleen waxyaabaha u qabsoomay maamulka Galmudug iyo waxyaabaha aan u qabsoomin dadka reer Cadaad oo aan wax ka weydiiyay waxa ay ku kala duwan yihiin maamulkii hore ee uu maamulayay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo kan hadda jira ayaa waxay ii sheegeen in aysan jirin wax farqi ah u dhaxeeya waxayna intaas ugu dareen hadda amaankii faraha ka sii baxayo waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer Cadaad oo aragtidooda ka dhiibanaya wax qabadka maamulka Galmudug iyo waxyaabaha uu maamulku ku fashilmay inuu wax ka bedelo haddii aan fakarkayga waxa ay qabato dawladda aan
iyo waxa u dhiman iyo sida ay tii hore ahayd iyo madaxweynihii hore waxqabadkiisii madaxweynahan aan ka hadlo inkastoo wax badanna ay dib u dhaceen sida dhinacyada amniga laamaha amniga ay hoos nooga laabteen waa sax in meeshii caasimadda ahayd ay ka maqnaadaan saddexdii xukuumadda ugu waaweyneed waqti xaadirkan waxyaalo oo laga fiican yahay way tahay laakiin haddana waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka oo arrin emergency ah u aaday gaalkacyo xal u aaday haddana waan dhihi karnaa maqnaashahaasi wuxuu keeni karaa dayacad badan waxaan ka mid ahay bulshada ku nool dowlad goboleedka galmudug khaasatan caasimadda dowlad goboleedka galmudug magaalada cadaado run ahaantii galmudug maxaa u qabsoomay halkayse hiigsanaysaa dowladdan hadda jirtana maxay kaga bedelan tahay dowladdii hore haddii aan u fiiriyo dowladdan hadda jirta dowlad goboleed galmudug iyo madaxweynaha iyo golahiisa wasiirada ee maalinta dhaweyta lagu dhawaaqay waxaan dhihi karaa wax weyn oo u qabsoomay ma jirto wax weyn oo ugu bedelan yihiin dowladdii hore ee halkan ka jirtana ma jiraan anigoo oo la barbar dhigayo tii hore dowladdii hore cabdikariim xuseen guuleed uu hogaaminayay waxay lahayd wasiiro waxayna ahayn kuwa aan shaqaynin oo ayagu xafiisyadooda jaabka ku wata kuwa markastaahi jooga gobolka banaadir magaalada muqdisho aan markastaahi xaadar ku ahayn goobta shaqada ama meesha laga shaqaynayo sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ahaa mid ka maqan goobta shaqada ee magaalada cadaado inta badan ka maqan sidii oo kale dowladdani waxay haysaa waddadii tii hore madaxweyne axmed ducaali geelle xaaf wuxuu inta badani ku howlan yahay safarro dibadda ah wuxuu ku dhawaaqay golihiisii wasiirada kuwii hore cabdikariim xuseen guuleed la shaqaynayay badankood ma jiraan wax xafiisa ah ma jiraan wax shaqo oo maaragtay isa soo taraya ma jiraan waxa la yiraahdo beesha caalamka ayaa Soomaaliya la shaqeeya oo hadda weyn oo jira ma jiraan marka waxaan isleeyahay dowladdani wax dhanka horumarinta ay uga bedelan tahay ilaa iyo hadda dowladdii hore ma arko dowlad goboleedka galmudug aan maanta wax weyn oo la sheegi karo aysan jirin oo u qabsoomay marka laga hadlo dib u xoreynta degmooyinka weli aan dowlad goboleedka gacantiisa ku jirin oo ururada nabadiidka ay gacanta ku hayaan bataataba wax ka qabsoomay ma jiraan sidoo kale dib u heshiisiintii dowlad goboleedka meelaha ay qolooyinka kale gacanta ku hayaan sida ahlu sunna wal jamaaca oo kale iyana wax ka qabsoomay ma jiraan bataatanba waxaan kaloo jirin istiraatiijiyad guud oo la dejiyey oo ay dowlad goboleedka loo sameeyey oo loogu talagalay in lagu hormariyo dowlad goboleedka galmudug waxaan jirin sidoo kale istiraatiijiyadii difaaca oo la rabay ayadana inay wax weyn ka qabato dalka gudihiisa waxaan isleenahay marka gaab badanaa jira waxaan isleenahay habsan badanaa jira waxaan isleenahay baarlamanka iyo golaha fulinta labaduba kiiskaas waxbay ku leeyihiin marka aan ka hadalno baarlamanka dowlad goboleedka galmudug si gaaraan u dhaliilayna haddaan nahay dadka ay matalaan maxaa yeelay 2 sano iyo xoogaa ay jiraan mana jiraan ilaa iyo hadda wax la taaban karo oo inta la hor dhigay ay ansixiyaan marka laga reebo wax iyagu ay ku danaysanayeen oo 50+1 waxa loo yaqaan ama 51 oo iyagu ansaxsadeen waxyaalihii kale la rabay dawladdu inay ku shaqayso hal mooshin inta la hor keenay ay ansixiyeen oo ay ka doodeen ma jiraan marka dadka reer galmudug waxayba u yaqaaneen xildhibaanada magacooda markaad u sheegto waxay ku leeyihiin ma waxaad ii sheegaysaa kuwii mooshin iyo mushaar kuwaas shaqo kale ma lahaane marka guud ahaan dowlad goboleedka aniga waxaan aaminsanahay in hawshoodu sidaas tahay axmed cabdisalaam khaliif Somali Cable TV magaalada Cadaado warkii oo aad ka daawanayseen Somali Cable daawadayaal wanaga inta cidii uu sheegay warkayga waxa kala socon kartaa page-ka internetka somalicable.tv sidoo kale website-ka Somali Cable YouTube-ka ku leeyahay iyo sidoo kale Facebook-ga Somali Cable iyo YouTube-ka dhamaanteeda sida iyo nabad galiyo